أول وين السلام يا دمانتين قبلها يري وحاول مهمة دلها هذا يا تاسوي حدي أيضا ديارو هين وأيضا شايل كديارو هين هي خسارننا اللي وحي صوتك تنميدي waxaan rabaa dad badan oo inaga maqanay maqlaan oo iga faa'iideystaan inaan idinku deeqo deeqda koobaad baan bilaabayaa kiis islaamaha yeelanayo xogaa waa ka khafiifinaya ilaa waa soo gelayaa gabadhu awalu hadda waxa weeye dadka dhalinyarada waxa ku badan burburka isfurida iyo dhimista guriga sababta keenaysaana waxay tahay gabadhu marka hore ayaan la soo barin nolosha macaan ee dhabta ah gabadhu nolosha macaan ee dhabta ah maxay tahay waa tasriirta iyo guriga lagu la noolaanayo macaan kale ma jiro macaanku waxa weeye sariirta aqalka guriga gudihiisa haddii aad Facebook oo haysataan inuu macaan yahay oo aad iska shaqaysataan maaha waxa la rabaa gabadhu su'aal haddaan idin weydiiyo gabadhu marka ay ninka shukaansanayso u horeeyay ay baranayso ee ayna Facebook ka baran maxaa dareentaan hablahan ka rabaa maxay tahay farxadda dareentaan see ku ogaataan inuu kari kaagi yahay ya okay waxaan idin sheegayaa marka halka shakhsi ee aad barato maaha ka markiiba ku guursanaya kan ilaahay ku idma ee ku guursanaya waxa la rabaa marka aad soo gashaan gurigiina ee ninku guriga soo galo ayuu jacaylku bilowdaa kow muxuu ku bilowdaa hablo waa sii jeestaan habbaad siinaysaa judha waraysa albaabka markaad ka furtaad isaga saa u qabanaysaa waxaad jirta meel markiiba dareenka laga qaato oo xubnaha ka mida oo jacaylku ka abuurmo taa ma garan kartaan ya maya laba xubno waxay istaabanaya jidadkiina meel ka mida idinkoo bannaanka taagan marka xubnahaasi waa kuwee jacaylku ka abuurmaya marka aad dukataan ee ugu horeysa afkiinu istaabto ayaa jacaylka dhabta ay bilowda waxa la rabaa ka aad ku bilowday ee aad ku soo xira gelisay ee aad ku keentay inaad ku wado ilaa yafiina wiita inta ay ka noqonayso cutusho tusiyada oo maxaan ku sheegay aad xabaalka gelisay haduu kula joogo ninku inuu san tagin laba mas'ala dhaxla iyo soo jeesta gabdhaha yar yar quruxda badan halka ka soo jeedo in la gula guursado oo ninku gabar kala keeno oo reerka kordhiyo waa barwaaqo soo kordha weey ma ha jacayl burburay inaad gabar xaasidana maaha laakiin waxa laga rabaa loobin inaad gasho ka qurux badan aad ka fiicnaato ninka ka jacayl badiso ninku iyada aroorta uu ka soo jarmaado oo iyada xalay isaga ula seexday iyada oo uu leeyahay kaliyantiga inuu adiga ku soo talo maxaa keeni kara maxaa taa kaga duwanta waxaad kaga duwantahay ninka saddex mas'alo haddaad u samayso lambarkii aad bartay maalintiisa ugu qiimo rees ya aadan waxba ka bedelin oo aad ku wado fiiriya inaad taqaanikaagu labiska uu jecel yahay markaas soo dhawaanayso dircashiidka ma xidmid yaana ka tagin labiska guriga u quruxda badan udgoonka guriga u quruxda badan nuuca guriga u quruxda badan baa ninka lagu soo dhaweynaya maalintii lagu aroosay ilaa fiina wiita weyn guriga isku mid ahaada hadaa 10 caruur dhashay waxa weey rag goobta udgoon iyo nolosha macaan iyo dhagan nugaylka iyo hurdada oo lagu qanciyo midna ragu kama tago jacaylkuna ma burburo ya jacaylku ma burburo hadii ragu inta helo waxa jirta arrin la yiraahdo su'aal qabri oo gabdhaha yar yar hadda raad isticmaalaan ha isticmaalina intiina ay maqlaysaa ha isticmaalina wixii isticmaal jiray ka tag ninka oo kulul markuu guriga soo galo oo aadan dukan oo habbi garayn oo kursiga u dhigin oo kabaha ka bixin oo aadan raali gal markaa tirad maxaad ii sidaa maxaad ii keentay yaa ku soo wacay heblaad ka timid gaarigaaga yaa saarna intee buu fogaanaya no way waa inuu saaxiibkaaga dhabta noqdo xataa tuu la hadlayo teleefanka isagoo dhinacaaga jiifa waa inaad adigu aan dareesin aad ogtahay cid uu la hadlayo ninkaaga isagoo ku dhinac jiifa waa inuu teleefanka gabadha kale ka qabtaa laakiin adigu aadan dareesin wariyaa kula hadlaaya wariyaa ku soo wacay wariyaa ku keenay jacaylku ku burbura jacaylka dhabta waxa weeye raali gelinta guriga gogosha quruxda badan udgoonka quruxda badan cunada macaan qayla la'aanta
turxaan la'aanta caruurta iyo ninkooda kala duwan kuwa hooyooyinka caruurta leh sariirtii oo dayacan caruurta soo galaya muxuu ahaa odaygu wuxuu leeyahay raali gelin gaara oo caruurta laga duway caruurta ma in loo diidaayo laakiin tan ku imaanayo hamarsanina ragga hortiisa isagoo ninkaagu ku arkay waxba hamarsan fiiriya isagoo ku arkay waxba hamarsan sirta nolosha leeyahay intuu ka maqan yahay isqurx sirta nolosha qaado intuu ka maqan yahay isqurx darkiisa qurxi gurigiisa qurxi gogashiisa qurxi adigu isqurxi markuu ku yimaado hal gumoodo gabadh yar hadda la soo galbiyo ya systemkii horena ha bedelin ragga su'aal baan leeyahay ragga hal su'aal bay leeyihiin ragga looguma sheego qaylo waxba markuu habigaroobo oo ay ka dilmaan muxuu ahaaye ciidamada dheereeye kulul ku tilmaami maaday doon waxa joogay yarkii oo ka dhinta baa la yiraahdo dhuxul daba uu sidaa baa waxa la yiraahdaa maanta waxa rabaa hooyada inaad xashka geyso aniga waxaan soo arkay xabiib dahab waxaan soo arkay gaadhi qurux badan marka toddoba habeen isbooyso marba dhanka dhunkato marba madaxa dhinac kaga timaado marba dhanka salaaxdo isagoo aan sogayn buu ku siinayaa macaantu yaa hooyada abu xashka geynaya abu xashka ku geynaya dadka oo dhan buu wanaajinaya ehelka iyo darisku wanaajinaya shaqada uu hayo wanaajinaya naagta xubinkeeda waxaa lagu gartaa oo maxaan kuu sheegay aan fiicnayno baariyada ahayn markuu shaqada tago wuxuu leeyahay shaad jactada wuxuu leeyahay waji jactada wuxuu leeyahay ada joogta oo bablaashinka la dhisanaya kaar kugu dhacday naag xun buu ka soo toos munaga naag xun bale in yar bayna ka dhiman oo habuu inaga hakradeen hooyada ayaa la rabaa inay idin barto hooyada ayaa la rabaa systemka guriga nolosha guriga inay barto ilmaha jacaylka ku dhashay iyo ilmaha aan jacaylka ku dhalan waa kala baarisan yihiin soo moogid hooyada gabadheeda la talisa lama furo dumarku way ka xishoodaan na hooyo maanta bal ka war maxaad qabatay marka la aroos gurigaaga sii ugu gash ninka maxaa siisa ina nooceedu geys hooyada tidaaday fariida ma aragtay gabadheeda lama furo ninka iyo gabadhuna isma nacaan ya laakiin taqaylisa markii hore aan jacayl baaraga iyadoo ordaysa inta soo qaaday ilmi meel daran ku koriso dala kula tagto noo ii shaqay ingaari kugu dhacday tiraada iyadoo shan wadatay u timaada marka aan ka bar iga barta systemka awalu gabadheeda samayn karta koow maalintii la aroosay iyo cimriga xaawo calkaar joogta markay joogteen jacaylku isugu mid ahaado ya oo heesto oo raali geliso oo macaanayso ya macaanka in yar baan qarinaya wiilashaana dhagooda ogolayday gogosha hagaajiya hurdada hagaajiya cunada hagaajiya hal aynaan aqoon oo raggu jecel yahay ninku markuu gurigiisa yimaado qorqodan maaha markastuu ku yimaado inaad wax siiso ayaa loo baahan yahay markasta uu ninku guriga yimaado inaad wax siisaa loo baahan yahay adigoo isaga raali gelin oo dhukanaya caana sii sharaab sii oodkac sii maxaan kuu sheegaa keeg sii nacnacsi walow kaana nacnacnaha ugu yaraadee saacadda ninku guriga soo galo wax sii ya wax macaana sii haddii aad gurigiinna malabka dhigtaan oo timirta dhigtaan oo shukulaatada dhigtaan oo oodkaca dhigtaan been inii sheegi maayo ninku waligaa ku nici maayo ya maaha inuu iimaan laayahay ya baahida uu leeyahay mar kasta markuu nacnaca cuno dee dahab kale wuu rabaayo nacnac baad siinaysaa markaa ku dhagaadkaanina ninkoo jooga bannaankaa ka sheekaynina ya ninkoo fadhiya hablow bannaankaad ka sheekaysaan bannaankaa ka sheekaynina inta ninku aqalka ku jiro dabadda ha u bixina dariska ha u wareegina ilaa uu kaa tago oo isagu shaqo aado ha ka bixin aqalka ma garan kartid anytime uu nacnac u baahan yahay marka waxaa ku dadaashaan inaad nacnac siisaan nacnaca ku raali gelisaan ku dhunkataan ugu heestaan ya khalaba hal mar ma ii sheegtaan inay khalata inay sax tahay waxaan ku hadlayaa ya sax weeye marka barta nacnaca raga inaga ka adag inaga ka qaalisan waxaynu haysanaa dahab qaaliya haddii aad dahabka u diido oo aad dahabka xidhato ilaahay magaciisaan ku dhaartay madaxweyne kastuu inuusan tallaabo qaaday marka barta dahabka aad haysataan qaaligiis ya adoo ku raali gelinaya dahabkaagu waa inaad isagana ku kasbataa adna uu wax kuu gooyaa waa inuu xashka ku geeyaa waa inuu xarago ku siiyaa waa inuu qoyskaaga raali geliyaa waa inuu naftaada raali geliyaa marka insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhallinyarooy burburka badan
inaynu ka baxno inaad jacaylka barataan wasaaradana waxaan leeyahay aamina iyo wasiiradda iyo maxaan kuu sheegay wasaaradda arrimaha qoyska daayarta ha la baro siminaarada ha loo badiyo ha la baro tiritaanka qoysku wuxuu yahay nolosha qoysku waxay tahay ma garanayaan wax garan karaa ma jiraan waa in layni baraa waa in si waadaxa laynila fadhiistaa waa in lagu yidhaahdaa ninkaaga noocan iyo noocan iyo noocan ula dhaqan ma imaanayo burbur facebooka badana joojiya yaa guri waa ku burburaane facebooka badan jooji nacnacbaa la siinaya dahab baa la siinaya dahabkaas oo macaan oo subkan oo wanaagsan oo ninkaaga waa inaad garan kartaa cadarka uu jecel yahay waa inaad garan kartaa labiska uu jecel yahay waa inaad garan kartaa sheekada nooca uu jecel yahay waa inaad garan kartaa nacnaca cunayo nooca uu cunayo inuu jecel yahay halka yaaba inuusan nacnacba nooca wada aqoon marka waa inaad garan kartaa ku dadaala nacnac anigu cilmi baadhisaan sameeyey gabdhaha yaryar waxay yidhahdeen hebelow intay wacaan iyagoo aroosa ii soo qaad haaf baastaa haafka baastaa ii wax taraa waay aad u karin laada su'aal yaa maxaad u karin laaday haaf baastaa oo hotel bac lagaga soo qaadayo wayaa ninkaaga dhammaad jeclaa u siinaysa no hooyooyinka hore ma samayn jirin iyadaa qadi jirto nafteeda dulmi jirta hooyo odhanaysa ninkayga haaf baca ii kan ma jirto su'aal kale marka ninku cadhoodo oo guriga dibadda uga baxo oo aad ka cadhaysa bilaadan baa tahay maxaad samaynaysa gabadha Soomaaliyeed ma yeeli kartaa gabdha waa yeelaan gabdhaha reer Puntland ma yeeli karaan intay ka daba tagto inay tiraahdo xabiibi waa ku jeclahay hayga tagin hay furin hay xumaynin adaan ku baaray ma oran kartaa yaa ma samayn kartaa okay isaga xarakaaday uu ka biyo horeeyay uu ka tagay iigu celi ma oran kartaa waa inaad barataa inaad tiraahdo iigu celi xabiibi adigu aad ka samayso yaa waa inaad ka samaysaa isagoo aadan afka ku kala qaadin systemkaad uga samayn lahayd waa inaad keentaa waa inaad godashaa adigu waa inuu kuu godladaa yaa taana waxaan rabaa inaad barataan saadug ilaahu bala afka ku gosho waxaa la rabaa markuu kaa baxo ee uu kaa cadhoodo inaad ka daba gurguurato inaad madaxa qabato inaad garbaha qabato inaad soo celiso inaad dunkato inaad tiraahdo xabiibi ha iga tagin waan ku jeclahay ha iga bixin waan ku jeclahay waan ku jeclahay waan ku jeclahay kun goor baan ku jeclahay ha iga tagin yaa bilaahi caleeg bacda ka daaya cunnada hooyada jacaylka cunnada bacda ka daaya ukari 20 kiisa ku filan ukari 30 kiisa ku filan ukari kada bacda kuma jeclaanayo cuntada ma kuugu soo qaado hadii sariirta aad duuduubantay kuma jeclaanayo haduu san guriga uu sinayn kuma jeclaanayo hadaadan qubaysnayn la bisnayn kuma jeclaanayo way aad suuqa ugu xilansaa dharka qaaliga ee quruxda badan isagana ugu xilansaa shiidka aad kula joogtay kijada no way kuma anfacayso shay kasta qurux badan saga u xiro waxa jira dhar gaar ah guuleeyahay oo aynu kula bisna suuqa la aadno marka khafiifka aad bacda ka dul xirataan cabaayadaha iyo waxa iska leh hurdada ma waxa iska leh hurdada waa in aan leeyahay duruuc khafiifa oo muuqdo ilaahay nimcada uu ku siiyay marka aad dahabka qariso inta kale waa inay muuqanaysaa ya waa inaad ku walcisaa sida loo walciyo ma aragtay marka cunada dhigayso waad soconaysaa maya maxaa qalbigiisa ku beermay ما هينا هلا وصمينايو افرتين ويماده غريغيغا هادو شنقبو هادو اخر قبو هادو لبا قبو انيغو ايدا ايان سغان رالي غلينيا waxba ila ma kusayeen gabadha kale ya kuma mashquul ay gabadha guursatay gabadha soo sheekaysataa yaa ku soo wacay haad qabanaysaa telefonka idin anigu waxaan rabaa inaan mar kasta isaga qalbigiisa ka soo ya waxa soo dhan waa ilaawaya waxa ka weynaan leeyahay ma ninkii waxa uu noqonaya hadeeran qadasiyay abaaru joogay nacnacii u tuurtay waa ku soo noqday aanan waraabiyo maaha waxaan leeyahay biyaan sheegay ma baxaya marka meel ma u socdaa ninkaas gabadha kale aan waxba siin
شوف قبل كلا ليلة قبا سيريا قبل كلا ليلة قبا تصالحان وآخر يلا تكسر حبرتي أتوسد بأكون مغنت أنا جن نتبت وأبان وحوجني وصاقر الموت أقيل على النجارات اللي ماشية تكون مغنى لورا ذات إن كان كوجود عليه بلا لا كريت كان حنا قبنا يا وصار كيف مطلوبين يا إستغام مطلوبنا مركز حيل هذا نايا ماذا كمان نحوها حبلايو كمان يا ربي يورس ناكالك أرقف كارك في اليوم جم نحوها يا رب بريس سيبا كودا عليك يا والله أنا بيني ميسي سيبا كودا عليك يا جي يا بري حبيبي حق وسع لشغل دودي من دبر كوتشيدي واحد من لا دبر كذا كوتشيدي وين كان وأنا كذا أنا نيجي يا سام بريبلان واسنيا لك يا جاجي يا فتا يا جاجي سببت يا له هذا سبب ملونه حن أو تلفنوي ما بي ما ترى شو درنا أنا أمير يا لا لا سما يا بيسف كده جاي حط إذا ما يسكرون منه لكن إذا ما يسكرون منه يسرق كاستمر تبقى سوادا ما ذي عشر كلام كوارك قبل الريب بدلان بنيش وتكاوي كوارك كو قبل اللي بحدها واحد لين المركز اللي يقيمه يسقاش يسقال ككله ويسكمت هل قبل بعد لين بيني ليش يجمع أنا كنا يقدروا سقال يسقاش ككله لبس يستنبه يكلا بحان من هيسكن ولا هذا بيتر هيسكن ولا هذا واتاد يعني نار الجي كاري كودا عضي يقدرن بيكون مغني يلا لا تكتيك يا ninkaasi wuxuu sameeyaa habeenkii markuu socdo salaadii laytal khadariyaadii buu aadaa tag xaq iskeeda huntada markuu ka kaco inta ku maqantay salada yar waalan ay qaadato ma aragtay intay ku maqan tahay xalana sariirta jaxtadkaadu ku seexday bilaawunsiga ahay ila meel baa macaan yaala tiibu soo garaaca markuu soo socdo tan uu ka qarinayaa inuu meel xun ka yimi soo taftafa xoogaa shaaraad adigu kaala tagay oo kaawadaysan iyo xuu soo xidha markaasuu albaabka markuu salaad wax waad rudaa ما في ليس دي حالي بتوقف العاوين اللي سلاس واحد كوسو غرغراعه الباب قاعد فكر سيسم سو ادغي الله حاتم هاكو حي الا waa ku shubaysaa waqti xaga inaan wax ka jirin ma caaleeday waa daadinaysaa marka meeshii aad geynaysaa macaanay iska raaleeho aadaan uga xumahay xabiibina ma iska dhaaf quraaco qubayso adiga waxa ka sii dhigaysaa isagii rasuulaya hadaafta la ku meel khayrkaas aan deyn karaan marka waxaad samaynaysaan waxaad jirta qolo inaga sii baarisan deegaamadan ayna la wadaagta qabiil afka ugu dhufan maayo laakiin waxay sameeyaan sii joogso badan hadduu afar qabo hadduu shan qabo hadduu laba qabo ninka ay ka hesho shooladay ugu dhacdaa intaan sheegay ka badan iyadu samaysaa hadduu yidhahdo gurguura waa gurguurata ya aqalkaa ka bixin duyada kama baxdo markaasuu odhanaya tii hore maxay ahayd laytal khadar janna fardowsa ya gabadhii shumisbadan ahayd maxaa ka sii sayid caleeyey mid gurguuranays ma fariiq laba hata ka saac inagu gurguuranba karimayno dhabarkeena adag يا مركز يا واوجد كنتنادي فقبيل كي كده على قدي المال بحسن كتعبت أنا على قدي بحالكي كواسنا واتران وأنا لينا لو ذاك مركز عم برنا تعال كرجين هوي يمكن هبرتان قبلها هنا وحشيان قبلها واحد هذا هوي الله فريسو حالك جوش هذا كور عنا هذا كور الحالة هذا كور واحد ترتاح سيستمية بدن والله يسكو قبض وأنا هو يدو جبادة جورجا وقلت كتاب بوقتها وقتها حالة ده دراسة ديسا أنت هذا حتى جبادة يرعى بطو وشيدان باين أقول ماني أي معنا حوجا مسترس استنى هو دش وإيكحنا أيكو كبتا طلعهان ينفعهان وحكدمن وأنا سبينا هذا من فحورة جبادة ينجا جورسن وإنك ينورهون نبرح حوجا لودين قياس ما كان هو يسكت سوق هذا فرصان بلنا ويسكب بحناية خبرها كلام يا نقل ما تعلم خبر ويسك حوجا يا
وهاترا من دعوة وين سود معاني وهاترا من يرو هنبله سود معانا جباك وقبته ملحك وقبته هو يا ساتاي هو يا معان هو يا محاقبتا هو يا إسكور سيبقى لتعله وصدق هذا السيستم كصدق المرين يا كاسين نتعله محاي قبل من نوقف بهانت ما سمعنا ما أنا ما سمعنا أنا إذا كورون وحلاقي يا كل يوم حيدا نبين بين نقول طبعا كقبض صدق كم يتبع سمعيه ما الشخص طبعا كقبض صدق كم يتبع سمعيه تضرب هذا كله قبض هذا لما أنا فرصة باهي هذا ما دبوش باهي العمر ليس سيا معها قبض واحد ربطها وش واحد ربطها جوجل waxay rabtaa maxaan ku sheegaa cadar waxay rabtaa maxaan ku sheegaa mafac fara badan oo rag lagu qabsado gabadhu hayn ya miyaynu sameynaa waa ku soo jeesanaya horta miyaynu sameynaa markaynu tobanahay saddex inaga mid baa sameeya meeqa gaab ah toddoba waa inaynu baranaa oo majority ku noqonaa gabadha iyo wiilka bay naga dhalay caruurteena inaan dhaqaalaha ku bixino talada ku bixino waxtarka ku bixino waliba systemka gabadha shay gabadhaada ka waxaad ogaataa waxaad adigu u baahnayd raaxaad u baahanta raaxadaada macaan iyo udgoon bay u baahanta muqmada ninka saad u baahanta uunsi aad u shidataad u baahanta adaraad sumin saad u baahanta halkan wax ku yaalaad u baahanta gabadhii ma bahaysato wiil yar baa guursada miskiin ama askari ama maxaan ku sheegaaye baagamuuda ya haddaadan ka warhayn maxaa halkaa ka dhacay burbur baa imaanaya furataa ya intaa waa inaan hablaa u qabanaa waa hooyooyinka waa inaan gabdhaha la talinaa waa inaan gabdhaha gurigu suu hagaago oo gurigu u nagaado oo jacaylka loo barto aan gabdhaha gurigeenna ugu tarbiyadaynaa guriga ay ku guursadeen anigu faafsaanbal hadda markaan shukii sheego waxaan hayaa gabadhaan ayeeyow ahay sayna baa og dhinacayga ay deganta waa gabadh yar 16 jir bay ku guursatay wiilkuna waa askari maaqan 17 wuxuu jira ma garanay runta xaqiiqo waa meelahaas kama weynaan u maleynaa guriga ugu quruxda badan gogosha ugu quruxda badan habeenkii markay hooyanaysa systemka raaxo ugu qurux badan ay habi ku tahay gabadh yar 5 bilood jirtan wayst ayaanu sameeyaa iyagoo faraxsan bay aroortii soo booda hooyaday baan uga imaaday boqol jir oo joogto hooyadayda aniga ay dhashay 110 sano jirtaa wali way soconaysaa waa tukanaysa way ismaamulaysaa been inuu sheegi maayo inaad aragtaan ilaahay waxba kuma aha inta hoostaas wax kaga wada naamaande guriga uu si mawshida naamaande gogosha miiska soo hurguftay sariirta naa qolka socod ilaahu ka baxo ilaahu soo galay qolkaasi waa xidhay isagoo sidii aroos abu yimaada marka waxaan inii sheegayaa gabdhaha inaynu isgarab taagno inaynu jacaylka barno waan uga sheekay anu gabadheeda hadda jacaylka mid yaro kala soo koraysan ee uga sheegay taan dhalay waa uga sheekay toddoba dhasho joogta systemka guriga markaan tago kulligood macalimiinta markay soo fadhiistaan been inii sheegi maayo ka aan ka sheekaynayo mid ka sii macaan oo lahan macaan leh baan u saaraa waxaan qof kasta saa u noolow adduunka ilaahay baa bixiya markaad tukato oo ilaahay aad adeecdo baad addoon alla leeyahay noqoto risaaqadu iyadoo soconaysa albaabaday soo garaacaysa qofka aad la nooshahayna jacayl aad kula nooshay noloshaada iyo bilo iyo inkaar iyo moobil iyo xagaad ku maqnay nima kugu jirin waxay waayaan ma laha marka waxa way qofku allana ha ku xidhnaado ilaahay ha lagu xidhnaado ha la tukado ha la iscafiyo dariska iyo dawaankaba ha la cafiyo ha la isjeclaado aniga isjeclaado hooyadii jacaylka waxaan maqlay halkaa mid labada afka ku goysay afka bela ima goyso ما هذا ولا ينهد عليه كل جين أنا جا واحد اللي هذا حاوى على كاربان ومليني هذا كار ما يمكن ما سياركتين ما كوا مر بدل واحد تتأكل بحية يوم حها إلى عضها أيوه وجور كان كهذا قبلها لفرين عن كهذا لما صير كجبادو إنكو أفر ناقود وذقابي كره وحفظك كرت قبل الله يقول قضاء وحيكون حفظه سالك وكتبي كذا على هذا وسارده قبل الله يقول قضاء وحيكون حفظه سال نكا داحي فرق بدن بوليه مراد ولعت هاي مراد ديق ليده هاي مراد مشي
مرض حاملتها انت ما يسقى ناقو ربا إلا واتا مر والبنان عبدو تاغني marka inta adigu waa tan ku maqantay tan macna ahaasis isagoo aan fusuq marin xanuun marin cadaab galin ayuu ku soo laamanaya beermiya wiilka walaalkiisu dhalaya gabadha walaalkeedu dhalaya isjeclaada ragana wada guursada intii aan muxuu ahaayeen markaas mid hal nin wada jeclaatay aad waxa la yaabay nin baa uu qaba askari afar dumara habeen batoogo daayfiiriya askarigaasi saddex qol daadun baa la degaya hal qol baa reerku wada leeyahay habeenka raaxadu waa hal qol inta kale heegankay qaadata caruurta Allah ayaa guriga laga shaqeeya 24 saac gabadhaas qaadata garaway deganta garaway la degay gabdhiisu is jecel reerisu isma dagaalaan 24 saac gabadhaas waa sharafta qaadata marka nolosha waxa tiraan casri baan gaarnay casri ma inaan gaarin casri waxa markaad ogtay diinta islaamku inay ninkaaga u ogoshahay inuu guursado oo guur halaala ku keeno oo uusan fisuq ku aadin oo eers ku keenin oo bala ku keenin oo garac ku keenin oo galow gabadha walaasha inuu kula guursado baahidaada wassalaamu calaykum wa salaam ya dhamaan Soomaali dhibaatooyin weyn baan haysta haweenkan waxyaalo badan isoo yihiin xaaw aad baan ku maadanaya talooyinkaaga aan si gaar ah ugu baahanahay si gaar ah لأن ضدك سجارة وباهنا رنت هذا كوشيء سجارة أنا شخصية أنا واحد شكله ما حنجعل أنا اللي هو سمي هذا حنا قلي قد بعرّ هذا بحي عنده الله يكريه وهذا بربح شاه سكري ورنت هذه الشيء أول وين السلام يا دمانتي قبلها يري وحاول مهمة دلها هذا يا تاسوي حدي أيضا ديارو هين وأيضا شايل كديارو هين هي خسارننا اللي waxay soo taagteen miidiye waxaan rabaa dad badan oo inaga maqan inay maqlaan oo iga faa'iideystaan inaan idinku deeqo deeqda koobaad baan bilaabayaa kiis islaamaha yeelanayo xogaa waa ka khafiifinaya ilaa waa soo gelayaa gabadhu awalu hadda waxa weeye dadka dhalinyarada waxa ku badan burburka isfurida iyo dumista guriga sababta keenaysaana waxay tahay gabadhu marka hore ayaan la soo barin nolosha macaan ee dhabta ah gabadhu nolosha macaan ee dhabta ah maxay tahay waa tasriirta iyo guriga lagu la noolaanayo macaan kale ma jiro macaanku waxa weeye sariirta aqalka guriga gudihiisa haddii aad Facebook oo haysataan inuu macaan yahay oo aad iska shaqaysataan maaha waxaa la rabaa gabadhu su'aal haddaan idin weydiiyo gabadhu marka ay ninka shukaansanayso u horeeyay ay baranayso ee ayna Facebook ka baran maxaa dareentaan hablahan ka rabaa maxay tahay farxadda dareentaan see ku ogaataan inuu kari kaagi yahay ya okay waxaan idin sheegayaa marka halka shakhsi ee aad barato maaha ka markiiba ku guursanaya kan ilaahay ku idma ee ku guursanaya waxa la rabaa marka aad soo gashaan gurigiina ee ninku guriga soo galo ayuu jacaylku bilowdaa koow muxuu ku bilowdaa hablo waa sii jeestaan habbaad siinaysaa judha waraysa albaabka markaad ka furtaad isaga saa u qabanaysaa waxaa jirta meel markiiba dareenka laga qaato oo xubnaha ka mida oo jacaylku ka abuurmo taa ma garan kartaan ya maya laba xubno waxa istaabanaya jidadkiina meel ka mida idinkoo bannaanka taagan marka xubnahaasi waa kuwee jacaylku ka abuurmaya marka aad dukataan ee ugu horeysa ee afkiinu istaabto ayaa jacaylka dhabta ah bilowda waxaa la rabaa ka aad ku bilowday ee aad ku soo xiro gelisay ee aad ku keentay inaad ku wado ilaa yafiina wiita inta ayaya ka noqonaysa cutusho tusiyato uu maxaan ku sheega aad xabaalka gelisay haduu kula joogo ninku inuu san tagin laba masala dhaxla ii soo jeesta gabdhaha yaryar quruxda badan halka ka soo jeedo in la gula guursado oo ninku gabar kala keeno oo reerka kordhiyo waa barwaaqo soo kordha weey ma ha jacayl burburay inaad gabar xaasidana maaha laakiin waxa laga rabaa loobin inaad gasho oo ka qurux badan ka aad ka fiicnaato ninka ka jacayl badiso ninku iyada aroortii uu ka soo jarmaado oo iyada xalay isaga ula sixday iyada oo uu leeyahay kaliyantiga inuu adiga ku soo talo maxaa keeni kara maxaa taa kaga duwanta waxaad kaga duwantahay ninka saddex mas'alo haddaad u samayso lambarkii aad bartay maalintiisa ugu qiimo reys
يا aadan waxba ka bedelin oo aad ku wado fiiriya inaad taqaaninkaagu labiska uu jecel yahay markaas soo dhawaansan dircashiidka ma xidhin yaana ka tagin labiska guriga u quruxda badan udgoonka guriga u quruxda badan nuuca guriga u quruxda badan baa ninka lagu soo dhaweynaya maalintii lagu aroosay ilaa fiina wiito in guriga isku mid ahaada hadaa 10 caruur dhashay waxa way rag goobta udgoon iyo nolosha macaan iyo daganugaylka iyo hurdada oo lagu qanciyo midna ragu kama tago jacaylkuna ma burburo ya jacaylku ma burburo hadii ragu inta helo waxa jirta arrin la yiraahdo su'aal qabri oo gabdhaha yar yar hadda raad isticmaalaan ha isticmaalina intii ay maqlaysaa ha isticmaalina wixii isticmaal jiray oo ka tag ninka oo kulul markuu guriga soo galo oo aadan dukan oo habbi garayn oo kursiga u dhigin oo kabaha ka bixin oo aadan raali gal marka tirad maxaad ii sidaa maxaad ii keentay yaa ku soo wacay heblaad ka timid gaarigaaga yaa saarna intee buu fogaanaya no way waa inuu saaxiibkaaga dhabta noqdo xataa tuu la hadlayo teleefanka isagoo dhinacaaga jiifa waa inaad adigu aan dareesin aad ogtahay cid uu la hadlayo ninkaaga isagoo ku dhinac jiifa waa inuu teleefanka gabadha kale